waxaan weli si rasmi ah u bilaaban shirka dhuusamareeb 3 oo waxa yiran madaxda Puntland iyo Jubbaland. Faarax Lamaane ayaa inoo haya faahfaahinta warkaas. كوثر حالة مقالة dhuusamareeb maantay waa iska yara deganay dhaqdhaqaaq badan oo dhinaca siyaasadda ah oo ka socday ma lahayn inkasta oo weli ay ku sugan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada marka laga reebo labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland oo weli iyagu ka biyadiidsan ka qaybgalka shirka laakiin weli waxa jira ayaa la leeyahay dhaqdhaqaaqyo iyo rajooyin ku saabsan in madaxda labadaas maamul goboleed ay ka soo qayb galaan shirka oo ay waayo shirkaba waxa uu xayiran yahay waa ayaga daraadood dhaqdhaqaaqyadaasna waxa kamid ah mid uu wado madaxweynaha martida loo yahay Galmudug Axmed Qoorqoor oo xitaa waxa jirtay shalay in Qoorqoor qorshihiisa ay ahayd sida wararka aan ku helayno Galmudug ka imaanaya in madaxweyne Deni uu xiriir la sameeyo ama ugu yaraan cala aqal hadii xitaa ay u suura gali leed shalay Qoorqoor qorshihiisa waxay ahayd inuu tago Garowe oo soo qanciyo Deni si shirka uu u yimaado ولنا وحلا ليه دلال كسواء وصعداء أو حريرو أي جرا وسكوديو إن مدحوين الدنيا وكوكانو صدق كلا وحاجرا أيجنا أحمد مذوبة إن لفيليو إسنا إن وكسوق يبقى الشركة هرانت الضباط كسوس عضايا اللي بدو وحلا فيليا إن أي مادان ننع كلتنا وحاجرا دقائق إينا أي باش عالم كوضان oo culays ay ku saarayaan dhinacyadaas gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland inay iyagana yimaadaan shalay waxa ay soo saareen beesha caalamku baaq wada jir ah oo ay ku bogaadinayeen shirka ugana dalbanayeen madaxda ka maqan in ay ka soo qayb galaan si hore loogu sii socdo dhinaca kalena waxa jira jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa golaheeda amniga in arinta Soomaaliya ay fadhi kale yihiin maanta gelinka dambe gaar ahaan galabtay inta idaacadan waliba ay ku jirto in laga hadlayo xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada siyaasadda iyo amniga waxa la filayaa in marka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu warbixinta dhageysto kadib berri gelinka hore saacadda New York oo ku aadan gelinka dambe saacadda Afrikada bari in qaraar uu ka soo baxo jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa gaar ahaan golaha ammaanka kaasoo isna laga yaabo in uu wax ka bedelo ama uu wax ka taro geedi socodka iyo hanaanka shirka dhuusamareeb iyo xitaa ka qaybgalka madaxda iminka ka maqan oo dadka arrimahan indheeya ay rumaysan yihiin in dhinacyadoo dhamme ay isha ku hayaan qaramada midoobay waxa ay ka dhihi doonto arinta Soomaaliya iyo dadaalada iminka soconaya iyo siyaasadda iminka meesha ay marayso aad buu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ama xogtii ugu dambeysay ee shirka dhuusamareeb